dhowaanshahaga alla aad u dhowdahay hadba kolba cabsidaadu intay la eg tahay wey inna akramakum cinda allaahi atqaakum midka idinku maamuus iyo sharaf wanaagsan ilaahay agtii waa qofka idinku cabsida badan sida awgeed meesha ilaahay wax ka qiimaynayo waa cabsida iyo qofka qalbigiisa waxa ku jira wixii camalay aad samaynaysay aqbalkoodu ilaah inuu kaa aqbalo acmaashan aad samaynayso salaadii soonkii sadaqadii quraan akhriskii wardigii ducadii waxaas aad samaynaysay kala duwanee acmaala ilaah inuu kaa aqbalo waxay ku xidhan tahay qof alle ka cabsanaya inaad tahay markaasuu alle wuxuu leeyahay subxaanah innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay waxa uu wax ka aqbalaa uun oo keliya waa kuwa isaga ka cabsanaya marka dantaadu waxay ku jirtaa ilaahay inaad ka cabsato rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidka macruufka ah qof waliba uu garanayo muslima ittaqi illaaha xayumaa kunta meel walbo aad joogtid ilaahay ka cabso suuqa guriga madrasadda masaajidka shaqadaada maqaaxiyaha meel walbo aad joogtid ilaahay ka cabso maxaa yeelay inna allaaha kaana calaykum raqiiba alle isaga idin ilaalinaya wuu ku arkaa waa ku maqlayaa waa ku og yahay waa kula jiraa bicilmihi alwaasic kama qarsoonid mar qudha meel kastoo aad gashid ilaahay waa kaa warhayaa markaasaa ilaahay wuxuu eedaynayaa dadka qaar u haysta in ilaahay ay ka gaban karaan ama ay ka qarsoomi karaan marka ay waxaan wacnayn samaynayaan ama si kale haddaynu u nidhaahno dadka ishoodana iska ilaalinaya markay dadka la joogaanna isdhowraya marka ay goonni u baxaanna waxay doonaan qooshanaya markaas alle wuxuu leeyahy subxaanah yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waxaa la yaab leh yastakfuuna min annaas dadkiibay iska qarinayaan marka ay ama waxun dhegaysanayaan ama waxun daawanayaan ama waxun ku hadlayaan ama waxun soo jeedinayaan ama waxun samaynayaan yastakfuuna min annaas dadka iska qarinayaanoo wuxuu leeyahay dadku meelaanay kaa arkayn waxaa ku hadaloo samee ama daawo ama social mediaha ku qor in lagu arki maayo magacaaga magac kale iyo sawir kale saar saa doonta u samee cidi kuma oga walaa yastakfuuna min allah laakiin ilaahay iska qarin maayan qorshuhuba uguma jiro allah ku arkaya allah ku maqlaya allah kuu jeeda allah kula socda ilaahay baa ku og allah kaa warhaya qorshahaba uguma jirto marka waa inaad ogaatid mar kasta allaahu yasmacunii allaahu yaraanii alle way maqlayaa alle way arkayaa alle waa ii jeedaayo waa ii og yahay alle waa ila jiraa naftaada waa inaad u sheegtaa sida qaarkeed awgeed dadkii salafka ahaa carruurahooda markay rabaynayaan waxyaabay ku rabayn jireen waxaa ka mid ah inay odhan jireen ku celceliya sida wardiga oo kale allaahu yasmacunii allaahu yaraanii ilaah way maqlayaa waa ii jeedaa way og yahay way ila jiraa qofku naftiisa ayay arrintaasi gelaysaa dabeetana waxay keenaysaa qofku inuu is-ilaaliyo bay keenaysaa walaalayaal wakhtiga dunidan aynu joogno cumrigeennu waa kooban yahay in yar baad joogaysaa dunida khaasatan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigoodu waa kooban yahay wakhtigaa kooban qof waliba hadba wasu uga faa'iidaysto haddaad dayacdo wakhtigaagii waad ka shallaayi doontaa maalinaanaya shallay iyo qoomama waxba kuu tari doonin haddaad wakhtigaaga ka faa'iidaysatana waad ka faa'iidi doontaa ilaahay agtii baad ku farxi doontaa sidaa awgeed baa si aad u fahanto horta wakhtigu
ينولش هذا عمري جاجو ما هو عمرك ما هو عمرك عمر جاجو محيي هرت سويديبا والعمر يو محاتاي عمري جاجن أورك هو يدا مركا كشير تلا قري العمر له صفات ثلاث عمري وحوليه سدحت المامود سدح ذات المامود قفكي قرته وحا هباله إنه عمري سكفائدي السنة الصفة الأولى تلمان تكواد العمر لا يتوقف عمري مرقر استاقي ماي انت أدنوش هاي ساعدو يسكنادو ويسعونيان هدي أد شيفتو وأد هرودو حتى هدا ترى ور عمري يجي وان يرد شيفتنا ياي ده هاي حسعوني تشوكسو أنا قوة دقائق ما يلك فراش كان شيفاي ما كان يلي وسعوني هدي أد سوليجا قشوا صعونيا هداد شيء كينيسو هداد واحد داوانيسو هداد واحد عنيسو هداد واحد عبيسو حالة كستا وأتكسو أنتي العمر لا يتوقف عمري جاب مرقرة استاجي ماي وصعونيا حقو كسر عدا عمري كان وعكسر عدا خلقي وكتشوك سن لها وقت يقول كاجا إيجا هل كاسو كسر عدا اسمه تاجي يا مرك أما واحد سماه أما وحو عن سماه يسووا صعونيا وأنا سجل ما يا واحد صمينا سوال قرية الصفة الثانية العمر لا يرجع إلى الوراء عمري ودب أمان نقضه دب أمان نقضه إمنك أقرب مثال وحين تشوقنا هبين سلاسة حدين يسوتقنه نفي مال وحين هينه علمي عقلي وحين يسوكينه دب ما وعلين كرينا صبحي ساكي سنين تما كسو بلابي كرينا كجواب يا جماعة جوابتوا ما إنه عمري سعودي دب النقضة أو أدب عليسو أبد الآباد هكيابي maalintaa isniintee tagtay waa say ku dhaaftay weligaa kugu soo noqon mayso waa tilmaanta labaad soo ma aragta ma istaagayo mar qura istaagi maayo dibna u noqon maayo الصفة الثالثة العمر لا يتمدد iska dheeraan maayo cimrigu iska socon maayo waqti buu leeyahay wuu barakoobaya cimrigu haddaad wax wanaagsan dee la timaado waxa laga yaabaa cimrigaagiyo konton jir ku salaysnaa in ilaahay boqol jir barakadii ku geliyo waa barakoobaya laakiin ziyaadi maayo socon maayo cimrigi mar haddaanu istaageen dibna u noqonayn siyaadayna soo inaad ku faraadeegto afarta adin ilkaha isugu geysa maaha marka ku dadaasha cimrigaaga wax wacan aad ku hoyso oo ku xarayso waa laga maarmaan markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iideyso shan intaanay kugu iman cumrigaaga ka faa'iideyso dhalinyaranimada ka faa'iideyso intaadan gaboobin caafimaadka ka faa'iideyso intaadan bukoon geerida nolosha ka faa'iideyso intaadan geeriyoon waqtigaaga ka faa'iideyso qofku marka inuu dadaalo oo waqtigiisa ku xisaabtamo waa lagama maarmaan waqtigu wax walba waa ka qaalisan yahay innagana ka mujtamac ahaan waxyaabaha aynu dilno ee dayacno waqtiga ka mid ah qofku wuxuu koranayaa waqtigan soo sheekan ku luminayaayo waa soo shaahay maqaaxidaasna waqtiga isaga soo luminaya ama waxa laga yaabaa qofku inuu haduu qaad iyo balwad cuno uu dee barqadii fadhiisto habeenkii ka kaco saqbarkii inuu ka kacaaba dhici karta ama ilaa iyo fadhiyo maqribkii haduu dadaalo 7-8 saacadood ba maalin walba cimrigaagii lumaysa adduunna aan ku jirin aakhirana aan ku jirin xisaabteeduna ay ku dul taalo waa laga maarmaan qodobka saddexaad dunida markaa joogtid dadku waa qaybsan yahay dad waxa la yiraahdaa ahlul ma'ruf dadna waxa la yiraahdaa ahlul munkar mujtamacu qaybna waxay ka shaqaysaa maxay khayrka iyo wanaaga iyo diinta iyo danta madu waxay ku jirto ifiya aakhiro ay ka shaqaynayaan qayb mujtamaca kamidahna xumaan iyo shar ay ka shaqaynayaan adigu marka dunidii baad ku nooshahay labada qolo
keebaad awrkaaga ku xidhiidhsanaysaa awrkaaga keebaad ku xidhiidhinaysaa qolana jahannamay geedi u tahay oo awrteedii ku xidhiidhsatay qolana janno iyo khayr bay geedi u yihiin oo waa socdaan adigu safkeebaad gelaysaa nabigaa sheegay sal alla alay wasallam xadiidka fi ladab almufrad min xadiidi qabiisa ibnu burayda rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ahlu lmacruufi fi ddunyaa hum ahlu lmacruufi fi alaakhira ahlu lmunkari fi ddunyaa hum ahlu lmunkari fi alaakhira bal xadiiskaa u fiirso cajabtiisa ahlu lmacruuf almacruuf waa kalima jaamica dadka macruufka iyo khayrka iyo wanaagga iyo diinta iyo danta ummaddu waxay ku jirto ehelka u ah ee ka shaqaynaya ee u heelan ee la imanaya sida aad noloshoodu ku salaysan tahay ilaahay hortii aakhire markay yimaadaanna kuwa khayr qabay noqonayaan ahlu lmunkari fi ddunyaa adduunyada kuwa xumaha iyo munkarka wixii ilaahay aanu oggolayn ehel u ah qowl iyo ficilba samaynaya sidaa gaashaanbuur ku ah ee ku wada socda isugu garbinaya colaalkoodu waxaa ka shaqaynayaan aakhirana xumaha ehelkiisay noqon doonaan aakhiro xuma ehelkii iyo shar ehelkii ayay noqon doonaan buu nebigu sal alla alay wasalam xadiiskaasi wuxuu hagayaa noloshaada halkii aad ku biiri lahayd soomaalidu dhaqankeedu iyo mahmaahdeedu murti xoog laa ku jirta shakhsiga soomaaliga ahi inuu dhaqankiisa iyo mahmaahdiisa bartaa wax weyn bay ka tahay garaadkiisa iyo habsami u socodkiisa waxaa ka mid ah mahmahaha soomaalidu waxay dhahaan dadku waa xoola la joog iyo xaaja la joog qaar xoolahay la joogaan oo xoolahay ku wacan yihiin inay hayaan oo dhaqaan oo ka shaqeeyaan qaarna waa xoola la joog xaaja la joog oo de xaajadii bay hayaanoo markii xaaja timaadaba if iyo aakhiro wixii la doonayo hebel iyo hebel loogu yeedhaa la odhanaya bal ninkii hebela ha la doono xaaja iyo arrin baa jirta waa xaaja la joog kuwaasina qaybta saddexaadna waxaa la yidhaahdaa xasarad la joog xoolana waxba kaaga soo qaban maayo xaajana kaaga beegmi maayo xasarad buu halka kuula fadhiya xasaradiiyo maanta miidiya heshayna da way duulaysaa soomaa garbay haysataa miidiyahaasi ku duulaysaa dee ninkii xasaradda la fadhiyey bulshada qaybaheeda kala duwan umuurteeda haddii diin iyo khayr laga hadlo wuu xasaradaynaya haddii horumar laga hadlo wuu xasaradaynaya xasaraddaas halkaa la fadhiya wax kale lama soo fadhiyo sidaa awgeed innagu waxaan rabnaa inu noqonno in xoolaha la joogto dhaqaysa in xaajada la joogto ka shaqaynaysa iyo dee ku dar in diinta la joogto raacaysa dee soomaalidu saddexdaasay yidhahdeen laakiin haddaynu afar ka dhigno iyo diin la joog baynu odhan karnaa soo maaha dee in diinta la joogto oo ka shaqaynayso dadkii barayso baranayso dacwaddii iyo diintii iyo khayrkii ka shaqaynaysa ma sahlana sidaa awgeedba qofka muslimka ahi waa inaad dunida wax ku soo kordhisaa waa inaadan culays ku noqon dunida iyo dadka dushooda waalidkaa ku dhalay aabbaha iyo hooyada culaysa ku noqon mujtamaca nin far dheeraadoo culaysana ha ku noqon qof wax soo kordhiya noqo haddii kale aad bulshada culays ku noqoto lugooyon baad la imanaysaa de wa huwa kallun calaa mawlaah aynamaa yuwajih laa yaati bikhayr wuxuu ku yahay culays halkii loo diraaba khayr ka keeni maayo ha noqonin qof halkii loo diraba aan khayr ka keenin waa in meeshii laguu diraa aad khayr ka keentaa wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun waa in cibaadadii ilaahay kugu talagalay lagaa helaa iswarayso adiga iyo ilaahay xidhiidhka cibaadee idiin dhexeeyaa halkuu marayaa iswarayso bal salaadda sidee baad ku tahay imise salaadood baad jamaca ku tukataa oo adoo masaajidka ku jira salaaddii la addimaa ama la qiimaa imisa salaadood baad safka hore ku tukataa
qur'aanka maalintii intee akhrisaa ugu yaraan sidee baad ku tahay sunnayaasha salaadaha ka dambeeya iyo sunnayaasha kaleba wardigaagu iyo tasbiixdaadu xaggay maraysaa ducada iyo baryada ilaahay aad barido 24 saacadood imisa daqiiqo ama haddii la isu geeyo saacad ama saacado ayaad ilaahay baridaa addoon baahan baato rabbigii aan marna ka maarmayn isweydii wax khayra iyo dacwo iyo diin maxaad ka shaqaysaa maxaad barataayoo kororsataa oo inuu qofku iswaraystaa oo naftiisa aanu ilaawin waxay keenaysaa inaad iska warhayso oo naftaadii ka warhayso oo aad cibaadadaadii waqtigaagii ku dadaashid waayo gooraad dhiman doontid ma ogid ma dhallinyaranimaad ku dhiman ma gabowbaad ku dhiman ma meel lixaad ku dhiman ma ogid laakiin geeri baad ku xukuman tahay geeri haddaad ku xukuman tahay waxaad u baahan tahay cibaadada ku dadaashid rasuulka saxaabada axaadiidta ka sugan مالك بن الحويرث في صحيح البخاري رسول كان أنمي صلى الله عليه وسلم أنه دلين يرى اسكفلا سدو دو أيان أنمي فأقمنا عنده 20 ليلة لما تنهبين بانو لتشوغني حتى إذا رأى أننا اشتقنا إلى أهلينا إلى رسولكم مركا ودبت أركينا نحيسني إهل كيه ريريهنا نقبنه markaasuu noo yeeray markaasuu rasuulku wuxuu nagu yidhi salaada markaad dadkiinni ku noqotaan sidaa aad aniga aragteen anoo u tukanaya salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaad aragteen anigoo u tukanaya u tukada ehelkii markaa u tagtaan wanaagga u sheega xumaha ka celiya salaada tukiya cibaadadooda ku dadaala iyo xiriirka ilaahay ku xidhnaanaya yaro toddobada qof ama toddobada qaybada bulshada ee harsan doona carshiga ilaahay maalinta aakhiro maxaa ka mid ah shaabun nasha'a fi cibaadatillah dhalinyaro u badan ragga masaajidka fadhiya iminka machadul waxyayn wax ka dhiganaya toddobada qole ee carshiga ilaahay aakhira harsan doona waxaa ka mid ah dhalinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray oo ku koray oo weecweecashada iyo wadaka baydhbaydhka dhallinyarada kale ka nabadgalay isagoo dhallinyaro ah qofku markuu yar yahay dhallinyaro yahay waxaa la yidhaahdaa waayo aragna maaha udashal u dhashay maanta waa nin yar oo waayo arag maaha xagga kalena fudayd dhallinyaranimaa ku jira soomaalidu mahmahayada waxaa ka mid ah 20 jir intuu geed ka boodo ayuu tala ka boodaa waxaana keenaya laba sifo oo leeyahay sifada koowaadi waayo arag maaho iminkuu korayaayo waa geedka yaroo soo baxay waa badanba uma bariyin sifada labaadna waa fudud yahay weli caqligiisii iyo garaadkiisii si wacan uma fadhiisan wuxuu oran jiray cabdullaahi ibn mascuud radiyallahu canhu ashabaabu shucbatun min aljunuun dhallinyaranimadu waa qayb waalida ka mida buu oran jiray waalidan dee maryaha tuurtay ma aha yacni wuxuu uga jeedaa fudaydka iyo isdhexmarka badan marka ninka qofka dhallinyarada ahi wuxuu u baahan yahay cid ka aqoon badan oo ka waaya aragsan oo celcelisa inta uu soo kobcayo kolba sidaa awgeed waxaa laga maarmaana inuu culimada mucallimiintiisa ku xidhnaado oo tala weydiiyo oo dhegaysto oo xikmadda ka qaato wax weyn bay u taraysaa aad u weyn ayay qofka u taraysaa noloshiisa dadka waaweyn ee waayeelka ah inuu waayo aragnimada ka qaato oo la sheekaysto waa shay aad iyo aad muhiim u ah oo qofka wax badan taraya sidaa awgeed baa asxaabtii markaad fiiriso 10 mubashiriina biljanna dhalinyaray ahaayeen markaad hoos u eegto xilligii ay soo galeen diinta abubakar markuu soo muslimay radiyallahu canhu 37 jir buu ahaa مثلا عمر مركو صوم مسلمي تضبيا لباتن شربوها عثمان أفريا سدن شربوها علي بن أبي طالب طبعا كي سنة بمجارين وإن يروا أقل كرسول كتشوغ صلى الله عليه وسلم بوها ما كي رسالة وقات طلحة بن عبيد الله
أفريتبن شربوها كدين تقاته زبير بن العوام لحيتبن شربوها كدين تقاته سعد بن أبي وقاص تضبيتبن شربوها مركو دين تقاته سعيد بن زيد شنيتبن شربوها مركو رسالة دين تقاته بردو فرس أبو عبيدة بن جراح تضيلبات شربوها عبد الرحمن بن عوف صدن شربوها waxaad ka raajicdaa maktabadu waa yaalabaan filaya al-isaaba fi tamyiz as-sahaba ila ibn hajar afar mujalladood way halka ka raajico mid walba saa ka sheekeynaya inta hadaan ka soo qorqoray marka laga yimaado waad ka raajici kartaa taasi waxay ku tusinaysaa saxaabadu dadkii diintan garbaha qabtay ee kiciyay ee dunida afarta qaaradood la kala aaday ee islaamka ilaahay iyo diinta ku guuleeyay dhalinyaro ahaayeen dhalinyaro aan 40 ka gaadhin dhowr iyo 10 ilaa 40 inta ka sokaysa ayay isugu jireen waxa laga maarmaana marka qofka muslimka ahi in uu dadaalo inta uu nool yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay markuu la hadlay wuxuu yiri fastaqim kama umirta utoosnow sidii lagu amray lacanaanta eeg utoosnow sidii ilaahay ku amray adiga iyo intii ku raacday wixii xad gudubay barbar iyo khalad iska ilaali balay jundub ibn abdullah radiyallahu anhu wuxuu leeyahay kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu rasuulka la joognay annagoo dhalinyaro isku fila ah fata'allamna al-qur'an qur'aankaanu barannay thumma ta'allamna waxaanu barannay hadana quraanka micnihiisi lafdigiisi ilmi micnihiisi baanu baranay iimaan baanu ziyaadsanay cibaadaanu ziyaadsanay saxaabadii markay ka waramayaan rasuulka la joogay salawaatullaahi wasalaamu alayhi sidaasay ahaayeen soo rasuulku u tarbiyeyn jiray abdullah ibn abbas inan yar ah ya gulaam sammi allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik wa tarbiyat nabigu siinay wa dhalinyaro markaad wax cunayso inaan yaho bismillaah dheh midigtana ku cun xeedada ama sixniga aad wax ka cunaysana xagga ku soo xigta gacanta ka geli nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulku marka wuxuu leeyahay gulaam ihfadillah yahfazuk ihfadillah tajidhu tujahak ilaahay ilaasho ilaahay uu ku ilaalinayaa marka dhalinyaro tahay ilaahay ilaasho subhanahu wa ta'ala ilaali indhahaaga dhagahaaga qowlkaaga ficilkaaga qalbigaaga ilaali diinta iyo shariicada ku ilaali ilaahay waa ku dhowraya subhanahu wa ta'ala xadiiska markuu sharxayo al-Hafid min Rajab al-Hanbali kitaabkiisa Jaami' al-Ulum wal-Hikam san filayo marra ugu dambeeysan ka eegay laakiin waxaan ku arki jiray sharxiisuna aad baan u filayaa wuxuu keenaa markuu xadiiska sharxinayo qisasna wuu keenaa nin odaya oo da'weyn oo dooni ku soo xidhatay badda ka soo booday dhulka ku soo degay heebti soo socday markaas dadkii la yaabeen war ninkan shaybka sidaan u boodaya hadana nin sahlanba ma ninkan markaas la weydiiyay waxa lagu yiri odayna waa tay boodadaaduna sidaan yada u boodaysaa waa sidee هذه حواس حفظناها في الصغر xubnaha dad arkaysa buu yiri annagoo dhalinyaro abaanu ilaalinay markaan dhalinyarada ahayn ayaanu xubnaha iyaga xumaaniya macaasi dunuubka ilaalino diin baanu ku ilaalinay markaanu weynaanayna ilaahay baa noo ilaaliyay kaanu gabownay oo weynaanay ilaahay baa noo ilaaliyay subhanahu wa ta'ala waa sidaad ilaahay ula macaamisho haddii maanta adoo dhalinyaro ah salaadii aad seegseegto oo salaadii subax ka seexato oo casarkii ka seexato oo filimaan daawato oo maxaanka riwaayada daawato oo caawadan baalka ku dhex jirtay maanta oo dhan oo wax kale waqtiga ku lumisid oo maxaan ku idhaahdaa heesa dhageysatid wax kale waqtiga ma la yaani ku lumisid indhahaagii iyo gacmihii iyo lugihii iyo maskaxdii iyo aqliga alla ku siiyay baad ilaahay kula dagaalamaysa soo ma ogid markaad xumaanta daawanayso ama aad xumaanta dhageysanayso ilaahay inuu awood u leeyahay hal mar inuu arga indhahaga qaadi karo indhihii caadi oo saw kala furan
nuurkii aragga inuu kaa qaadi karo hal mar wax soo celin karaana ma jiraan soo ma ogid inuu hal mar maqalka dhagaha kaa xidhi karo dhagahan isaga iskale adigu ma lihid waxa lagu siiyay inaad ku intifaacdo xaqa iyo khayrka ku dhagaysato hal mar buu kaa qaban karaa maqalka cadkan weyn ee meesha ku yaala waxba laguma maqlo maqalku waa wax ilaahay meesha ku sameeyay imisa dhagtu joogtaa oo maqalku maqan yahay aad aragtay uu qaadi karaa soo ma ogid inuu caqligaba kaa qaadi karo kaad xumaha daawanayso ama dhagaysanayso ama samaynayso hal mar inuu caqliga kaa qaadi karo oo khalaas xubnahaagii jirkaagii waa joogaan laakiin ma fi caql majnuun baabad noqotay soo ma ogid hal mar inuu jirkaaga qayb ka mida bakhtiin karo lug iyo gacan iyo il iyo waax dhan inuu ku ridi karo hal mar adoo xumaantii ku jira cid soo celin kartaana ma jirto adduunka waxa jooga hadday isu tagaan xubin ilaahay bakhtiye ma soo noolayn karaan jirkaaga iyo naftaada ha kula dagaalamin ilaahay caqligaaga ilaahay ha kula dagaalamin aqoontaada ilaahay ha kula dagaalamin maalkaaga allah ha kula dagaalamin adoon ilaahay ka dambeeya noqo allah markuu leeyahay subxaanahu wa tacaala in allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih alle wuxuu kala xidhayaa qofka iyo qalbigiisa shawkaani markuu aayadda fasirayo sidee ilaahay qofka iyo qalbigiisa u kala xidhayaa fatxulqadiirka tafsiirka markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahay qofkani macaasi buu samaynayaa ka noqon maayo wuu caadaysanayaa dabeetana hal mar baa ilaahay isagoo wixii ku dhex jira buu ilaahay geeri lama filaana u keenayaa ama caqliguba alla ka qaadayaa caqliga ayuu alla ka qaadayaa wixii macaasi ee xumaanee u caadaystay uu samayn jirayna adoogoo waa ku raran yihiine isagoon weli ka soo hooyan oon ka soo noqon ayaa laga qaaday caqligii inta u hadhee noloshiisa waali iyo dayacbu ku dhammaysanaya aakhirana wixii baa la hor keeni doonaa marka iska ilaali qalbigaaga toobadda alla yuu ka xidhin markaad geftidba toobadkeen walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala innii tubtu al'aan ilahay wuxuu leeyay toobad ma leh liladiina yacmaluuna sayi'aat kuwa xumaha caadaystay ee dhaqan iyo macbiil ka dhigtay macaasida iyo xumaha toobad ma leh goorma dee waa markaas xataa idaa xadara axadahum lmowt marka mid iyaga ka midihii geeridu ku timaado halkaasaa nafti ku soo ururta qararardhaq waa tawxiidka u qabta ma ka baxday ma ku jirtaa waa nool yahay soo yara fadhiisiya jiifiya mid dadkii dul jooga mid wuxuu leeyahay fadhiisiya mid wuxuu leeyahay war ka daayo fadhiisi jiifiya mid wuxuu leeyahay barkimaha loo geliyo mid biyo siiya mid wuxuu leeyahay caynkan faleebadii kuma soconayso nafti waa ku jirtaa markaasuu xusuustay wuxuu qooshan jiray iyo macaasidii iyo xumihii uu samayn jiray markaasuu wuxuu ilaahay soo tabinayaa oo inoo sheegayaa oo inoo caddaynayaa kii hore u toobad keeni waaye rabbi u soo hoyan waaye alla u soo noqon waaye xaaladdu markay ku adag tahay oo jidhkii intii kale naftu ka soo baxday lagu iyo gacmuhu ma dhaqaaqayaan intaa laabtay ku wareegaysaa waa socotaa markaasuu isleeyahay iminka haddaba alla ilaahay wixii ka soo noqo walaysat tawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala innii tubtu al'aan لفرس آيات بالله عليك توبة ماله للذين يعملون السيئات كوا حمها يا معاصدة سمينية حتى إذا حضر أحدهم الموت مركا أي جيردو قصو حاضرته مد إياك كمدأ ودبيتنا ويرادو قال إني تبت الآن إمن كان توبت كينيا كي لما إله إليه سبحانه وتعالى رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وفي رواية ما لم تطلع الشمس من مغربها إلهي توبة أدونك وأقبله انت أنا النفط هلكا عنها أنو دون يرين وهلكا يسوق صورين
أما أنا عد عيضو قبل أدعك الصبح إلهي أنت كهر استبض وأقبلها قفك مؤمن كوقفية وخلدمية وبشر باتها ونفي الشيطان إياك وهلية وحاد مركا إن بعد يعني وحبضنا وحمانا كوكو اللفان لكن درتبد إسكدبت وإسقبوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كو الله كعب صدي هدي الشيطان كحما كتابته سكوريجي بلايا شياطين تا إنسي جينكو حدونا وغفو خلطمه معاسي دنبي كدعو مركبوا إسكرنا ورياي صادق خلطمي وصادق إلهي كوقفي ورصادق معاسي حمانته كجرا ورا الله توبت كان إلهي وقوصه نقضي الله يعفي الله يسامح وعينك سيدا أوجد بهابينك مركات سيحان يسو انت هذا سيحان وإن ما أنت واجو انتو بريدب بحصوصتها وحي كادعي انت حصوصا كريس هذا الله توبت كيني ودلالي وتوبت كين ليمي وويسيستي إناد هي تمركا سيحته واشياء لغا هدمان بل يرضى يا شبابكو وحل الشباب ينقسم إلى 3 أقسام بل يرضوا صدح عقب سمان كو شباب مستقيم ندل يرو توسن أقل وعنبو كصوبحي أما إلهي بدي توسيي وتوسيي هايو وسجى سدريا وعبادة سنية إلهي بكعب سنية دين تو كدق مية دنتي سوي قانا شباب مستقيم ونندل يرو توسن كلبات شباب منحرف ونندل يرى لكن إنما ما هو ويعسيه صلاة كليتها بل بالودة يوحاسو استعماله معاصي حمام بكل احتراء وضدي وعنيد بكبر سيه كصدحات شباب متحير ومدور إرسان حقنا ماها كوا توصلنا كمتشرو كون دي أنبضينا كمتشرو مال حول عياريا مالين واتكنيا جامعة أسبوع وصو حاضريا قرآن كيبو آخرينيا ووردينيا قص أدنا واقوي بيحكوي كالله ميسانيا كل حجرة مالين با قول الله شاهيا حال كيسو مدقنا يقول لي وان ورسانا هايو كرم بماي وحان سميو وعين كانوا إساق إسوالا يدي فضو إسوالا دي ووالانا يا مركا إنا عاد كبايدو كوا بايرسانا عاد كبايدو كاو ورسانا عاد كبايدو aad noqotid nin dhalinyaro oo toosan ilaahay ishu kugu haya subxaanahu wa tacaala markaad dadaashid oo qalbigaagu wacan yahay oo dadaalkaagu wacan yahay ku bari taaraya ilaahay subxaanahu wa tacaala horaa lagu dhigayaa xagaagaagaa kordhaya waxyaabaha laga maarmaanka waxaa ka mid ah takhalluq bilkhuluq alxasan akhlaaq wanaagsan inaad yeelato waa laga maarmaan qofku ma noolaan karayo qof aan akhlaaq lahayn أخلاق وناكسن قفان لهين نولشي صديع بكشرتها وحين كاي من يسد علمك يا خير كمركو قفكو طالبي هي مثلا هذا مثال معد كان بعد كان إنسان معد ك وحلا قولي إسك بده مجيء سكلية معنى علوسكو فردية مجيء اسمحوا هاي الوحيين وحيين كم حال لو قلت هذا الكتاب والسنة وحد قررنا إنسان ميدا ماشان كجرتا غرانيسا لما اوران معهد مقع كلا له لكن محل سي الوحيين بالسي مركا لغو كينو معدك هذا يمي مثل والد كابا كو كيني مركا لغو كينو محل لغو كيني يا معدك وسؤال اسويدينو باهن معدكي كتابك يا سنها lagu baranayay ee dadkii cilmiga lahaa ee diinta lahaa ee dadnimada lahaa ay gacanta ku hayaan ayaa lagu keenay sheekheena sheekh Shacbaan baba lagu keenay meesha min fadhiya macadkii mas'uulkii caamka hooyadii baa ku wada aabi baa ku wada waa lagu keenay maxaa lagu keenay meesha ma in lagu muslimiya lagu keenay meesha ya ka jawaab ma idade laakiin maxaa tahay marka hore مسلم بهتايدي والدك كودنا ومسلم محل لغو كان ماشي أن تكون مسلما ملتزما إن نقطت
muslim diintiisii haysta oo bartay oo ku dhaqmaya macallin oo inankan iga qabo waa caynka kan diinta inuu bartaan doonaya inaad noqoto qof shariicadii iyo diintii mu'min miyir qaba inaad noqotaa meesha lagu keenay oo kitaabkii baratid oo sunnihii baratid oo ku dhaqantid oo shariicadiisa intaadan hadlin ayaa waxaa la rabaa muuqaalkaaga iyo dhaqankaagu inay kaa tarjumaan muuqaalkaaga marka la arko in diin la xusuustaa la rabaa oo ilaahay la xusuusto oo aan maryan la xusuusan dee khamiiska iyo cimaamadu qof walba waa xidhan karaa carabta kuwa fanaaniinta baa khamiis iyo cimaamad iyo cigaal xidha marada waa la xidhan karaa zay islaam waa yahay dhar islaam waa la xidhan karaa laakiin waxa la daawanayo dhar ma hadde waa ruuxda jismigan dharka xidhan ku jirta socodkaaga marka la arko iyo labiskaaga iyo qaab dhaqankaaga waa in diin iyo alla xusuustii laga dhadhansadaa midkaasaa muhiim ah laakiin adiga oo maxadkii dhiganaya oo waxyigii ilaahay baranaya kitaabkii iyo sunnihii haddii aad salaadii masaajidka weydaarato waar masaajidka soo gal masaajidka salaad waa la qiimayaa hooyo ay igu tiri dukaanka wax ka soo qabo xaggaa ii soo maro waalidkiiba halkan igu sugayay farmasiiga waxba kama jiraan adiga waxaas hadhow baad is leedahay xaggaa iska sii maro caynkan sameeyo cishaa'iga markaad guriga tegto ee yarda iska weysaysato afar iska tuur halkaa mar iskuulka markaad ka timaado salaadii aad iska weydaarato jamci quraanka akhrintiisu ay kugu yartahay inta yare muqarrarka 10 aad waxba soo akhrin wax iska caadi oo routine ah aad u qaadataba waxan la baranay inay tahay waa inaad u qaadataa diin aad baranayso oo jahliga naftaada kaga saarayso umada ku anfacayso inama al-a'malu binniyat wa inama likulli imri'in ma nawa waxa niyada leedahay macadka niyada u soo gashay ya ilaahay kugula tacaamulaya adiga ilaahay kugula tacaamulaya waa laga maarmaan marka inaad ogaatid muhiimadda halkan aad u timid cilmiga maxaad u baranaysaa cilmi ma baranaysid oo cilmi qalbigaaga ku ururaya iyo faham wacan ma helaysid ila ilaahaad ka cabsato wattaqullaha wa yuallimukumullah u fiirsan laysu barkiyay alla ka cabsada ilaahay baa wax idin baraya in alla ka cabsatid baa la doonaya haddaad ilaahay ka cabsatid oo qalbigaagu cabsi gasho cilmi baa lagu siinaya cilmiga ilaahay baa gacanta ku haya subxaanahu wa tacaala علم بالله وسينية فهم قال لغوفرية حفظ قال لغوفرية أقونتي بالله لغوفرية عبادتي بالله لغوفرية خير كلهم بالله لغوفرية لكن هدي عيار أي باشو كاته عيار كالي أو نقو أي كاته هاي أيان دروين وي سكالان كوكو شيء ما أنت دلني يرات هاي أبها ونولي هاي خويضان وانوش هاي وأنت والد كودي هالك تشوفه وحدي عكرت إن والدكي ومنطقة كلا دقيقة أما ولال أما عد والده أدلة شوكتيد أو مقالة كلا والدك تشوجو أما مي بتشوجو أو إن أدوح برتها الكلاجو كان إسقوا حوجا عن كم أرمينين أيها دنا إن أنكو حبرتكو كان ماشي ما أنت واحد عنته يا واحد حرته يا واحد عبته يا فيجا حبرشة كوب حين يسو يا كتب يا بوجاكت يا قلمانتا منا شايف كيب سن ميسيد أما والدك كو إيبنيا أما عدة مسؤولك كاه لا شوكتا كو إيبنيس لكن أنت ما يصعون دونتا أنتاسي وحي صعون يسا وقت كوبن بوارن كاس صعونيا بريتو ودوينان دونتا حل بقى ذي كفولي دونا والد كان يعدن ما أنت كعنتك وهاي سادات بس نولاتو هذا لقارها بريتو إن مصروفته دودو ده عنتدو ده مصروف كو ده نولشو ده أتكشق يسوى لقى مارمان haddaad ka faa'iidaysato maanta waqtiga birina waad ka faa'iideyn doontaa haddaad maanta iska dayacdo birina waa dayacmi doontaa waxaan marka aad isu xusuusinaynaa in lagu dadaalo dhalinyaro ay waqtiga ku dadaashaan oo cilmiga waqti aad siisaan aad baranaysaan akhrintiisa ku dhaqanku ku barakoobayaa inaad la timaadid in ninka dhalinyarada ama qofka muslimka diintiisa uu ku cisoobo diintaada ciise kaaga weyn ma jirto diintaada inaad ku cisowdo ku dhaqantid waa laga maarmaan khayrka iyo dacwada iyo diinta iyo wanaaga soconaya inaad qaybtaada ka qaadato waa laga maarmaan cibaadada inaad badiso waa laga maarmaan social mediahan umadu ku rogmatay inaad yaraysato intaad cilmiga baranayso aad iska ilaaliso oo facebookyadan iyo twitteradan iyo
waxyaabahan faraha badan iminka soo kordhay aanan garanaynba inaad aad isaga ilaaliso oo aad daawashadooda waxa ugu badan ee aad daawatay furto inuu kitaabka noqdo aad raacanayso iyo casharka iyo darsiga aad dhiganayso waxa ugu muhiimsan waa inuu sidaa noqdaa waalidka iyo mas'uuliyiinta ubadka dhalay xil baa idin saaran ubadkan aad gacanta ku haysaan bari waad hooyanaysaan waqtigiinu marka uu yimaado caruurta iyo cidda dhalinyarta gacanta ku haysaan macallimka iyo mas'uulka gacanta ku haya waa inaad la saaxiibtaa booqashadaadu ku badataa maamulaha u timaada mucallimiinta u timaada ka waraysataa goobta waxbarashada imaatinkaagu ha ku bato xilligaad fursad heshidba aqoontiisa ka waran akhlaaqdiisa ka warama nadaafadiisa ka warama diinta see ku yahay waa kana xuduurkiisa iyo imaatinka ka warama mafasixiisa iyo joogidiisa kee badan habsankiisa inaad ka warhayso oo macallinka iyo maamulka la saaxiibtid ilmahaagu ogaado inaad meeshii joogto oo aad soo gasho inaad la socotid la sheekaysatid inagu waqtiga waxaynu ku dhammaynaa maqaaxiyaha cishaha marka la tukado maqaaxibu qofku iska fadhiisanaya caawo dhan buu torrog shubaya 9 iyo 10 iyo wixii ka dambeeya qofku dhaadhacaya cishaha markaad tukato aqalkaaga tagadadan hawl muhiim lahayn caruurtaada waxbarashadooda maanta cishaagiyaa tukaday maqribkii hablihii yar inamadii joogay maanta yaan waxbarashadii aadin casharada ay soo dhigteen daraasadoodii inaad akhlaaqdoodii haddaad macallimiinta iyo aqalka kaga warhayso oon xalaalana aad siiso ilmahaasi waa barakoobaya ducadana aad ku ladho waqti inaad u samayso ilmihii aad u sheekayso waalidka weyni waa jaamicad laga baxayo inaad u sheekayso dhacdooyinkii aad aragtay ama goobjooga u ahayd aad uga sheekayso dhacdooyinka caas waalidnimada dhacdooyinka waxbarashada dhacdooyinka dhacay wixii muhiim ay qaadi karaan aqligoodu fahmi karo inaad uga sheekayso inaad la saaxiibtid wax badan bay noloshoodu ka bedelaysaa qodobkaas kale inaad cidda uu saaxiibka leeyahay ogaatid saaxiibkiisa inaad ilaalisid inaad ku xidhid asxaab iyo ubad wanaagsan ama jiiraanka ah ama aad garanayso inaad ku xidhid isu keentid saaxiib ka dhigtid adee walaalaad tihiin saaxiiba wada socda wada shaaheeya hooyo lacagta qaata ka sii shaaheeya halka markaad maqribka tukataan ku soo shaaheeya muhiimadaada waa inaad isku xidhaa inankaa wacan ee toosan iyo inankaaga isku xidhaa oo saaxiib wanaagsan u yeeshaa cidda uu raacayo xilligu imanayo xilligu baxayo waa inaad ka warhaysaa waa inaad u ducaysaa inagu carruurta waynu habaarnaa inta badan habaarku wax ma keeno waa cuquba adiga kugu soo noqonaysa ayaan darro inaad u ducayso waa laga maarmaan inaad adigu toosnaatid uu ku daawanayaa ilmuhu ku daawanaya nin macallima wuxuu iga sheekeeyey wuxuu yidhi aroortii markii aan iskuulka nimi ardaydii kalaaskii fadhiisataan soo galay buu yidhi inan ka mida inamadii kalaaska fadhiyey shandadii uu watay uu miiska soo saaray markaas wuxuu ka soo saaray caagad sharaaba oo kala baran iyo laama qaado ka soo saaray markaasuu cunayaayo waa inan yar buu yidhi sharaabkiina ku kabanaya markaan soo galay baa waxaan ku yidhi buu yidhi waryaaye waa maxay waxaan aad wadataa macallin waa hambadii aabba buu yidhi aan soo qaatay xalay buu meeshii shaayadii kaga tegay qadifadii kaga tegayoo shandadan ku soo qaatay waxaan isla hadhow iska cuntid dee aabihii baa cunay wax waan buu moodaya wixii hambadii aabba baa soo qaatay buu waa ka daacadsan u jeeda mar mushkilad marka ilmihii kulama yaabi karaysid moogta ma kula yaabi karaysid wixii adigu aad leed aabo ii kan sigaarka ii soo iibi oo ladoo heblaaya kabadhkeedii tagoo qaadkii dhigaalkaan dhigtay iga soo qaad mishintii aabba dhireedhig iiga keen aad tidhaahdo dee berina isaga suryadal kale weecanaya soo maha marka in dhaqan wanaagsan runta inaad imaha u sheegto markuu gira aabaan ku raaco may waan soo noqonayaa iska joogaaba nacnac baan kuu keenaya hadhow waad soo noqota aabo nacnaci may waa soo ilaa waa beenta maadan soo ilaabin marka horena been baad kaga tegaysa inaad beenta ka ilaaliso runta u sheegtid